waxaan aad iyo aad xoogaa aan doonayaa in loo duceeyo kolley madaxdii hore waddanka waa la xusay cabdikariim cabdiwaraabe loo yaqaanay oo ahaa tiir weyn oo ka dhacay Somaliland 121 sano ku dhintay in loo duceeyo waan idinka baryaa taa kolkan ka imaado waxaan u soo daadagayaa wixii ilaahay afkayga alla ka keeno waxa weeyaan Somaliland 28 sano ka hor ayay ka go'een walaalahood haddaba maxay kaga go'een hal isweydiiyo walaalnimadii waa halkii dhiiggiina waa halkii diintiina waa halkii dhaqankiina waa halkii laakiin khasab maaha in wax la wada yeesho sababa jira awgiin waayo intiinani horta dhidaa waxba kama ogidin sababaha jira laakiin kol waa waxaan la ilaawi karin aan laga bogsan karin marka waxaan aad uga codsanayaa Soomaaliya laba mid shantii Soomaaliya in loo dagaalamo 60kii baan sii garaacayaa aan tuuta qaato shantii Soomaaliya wax ka soo celiyo Somaliland waa ka mid in Somaliland la aqoonsado waa labada waxaan doonayaa inaan ka hadlo Soomaaliya walaal kuma kala tagin dhiig kuma kala tagin dhaqan kuma kala tagin laakiin labadii walaal Soomaaliya hal saddexdii kale awal bay maqnaayeen inay isku noqdaan waa baabacada ma ka soo baxeen dhici mayso inta ay jiraan jeelka maanta aan u weynahay inantayda shukrina u yartahay sababtoo ah shukri sheekadii maqasho aan wax baan u taagnaa aniga inta ila mid example sida markay tahay waxaan walaalahayaga Soomaaliya ka codsanaynaa in loo duceeyo nala fasaxo nala aqoonsadana xaq baan u leenahay waxaan ogeysiinayaa in cad dheer ku leeyahay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo walaal oo eedo oo inaadeer oo wax kasta aqoonsa Somaliland nabadda halkaas ku xidhan halkaan kaga arintii Soomaaliya waan u duceynayaa Soomaaliya oo dhan waayo dad is abaynuna waxaan soo daadagayaa Somaliland waxaan leeyahay shay nin ayaa ma garto Soomaali koonfureed kama abiya isir badnidin laakiin ilaahay baa jidka wanaagsan idin waafajiyay jidkii wanaagsan ayaa la idin waafajiyaa iskaga dheerina nabadgelyadiinana xabaarsanaaba walaalihiina Soomaaliyan caawiya oo ama cod ku caawiya ama garab ku caawiya hadalkana hoos ugu sheego oo wadana kale ayaan waxba hadalka lagu qabane geed hoosta inta la xaadho xataa 2 sano ha noqotee xaqiiqada u sheega inaydaan soo socon waa reer Somaliland waxaan halkan hadalkayla fidayaan aad iyo aad uga salaamayaa si gaar ah xisbiyada macaaradka iyo kamxaafidka aba iyo madaxdooda iyo shacabkooda idinka dadku wax idin mooday dadka ilaaliya reer Somaliland wixii aad doonaysaan TV-ga la fadhiisanin ee aqalada hoostooda ku dhamaysta waayo waxaan ka yara maqmaqlaa TV-yada bariyahan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne garabkaaga allaha galcadowgaagana allaha jabiyo laakiin haddii aanad u dagaalami lahayn dalka oona joogi lahayn waan kaaga warrami lahaa wixii dhacay laakiin adaa iga xog ogaalsan dadka reer Somaliland uma baahna gacan bira gacan dhakhtar u baahan yihiin gacan qabowga u baahan yihiin ka warhaynba u baahan yihiin bari iyo galbeedba meel kasta oo Somaliland aad meel walba dhibkeeda ugu tagto xataa inanta ariga jirta anoo kala in loo tago islaanta ariga ilaaliso oo la waraysto oo la yiraahdo haye maxaa xun maxaa fiican madaxweyne intaasan ka codsanayaa anigoo ah Aamina Maxamuud Suldaan Diiriye Garaad waxaan u leeyahay ay dhigayga u dhameystirayaa in aanan dambiile ahayn laakiin aan run sheegayo
waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici odayga sharafta badan isaga iyo reerkiisa waa salaam badan maan u dirayaa waxaana leeyahay adaa ka waaya aragsan cid kasta hawsha hoos u eeg waxaan halkan ka salaamayaa Dr. Cabdiraxmaan Ciro Cabdiraxmaanow waan kaa diiday in TV-ga isa soo taagto waana ku salaamayaa ixtiraam iyo wanaag baan ku hayaa waxaan doonayaa inaan halkan aad iyo aad uga salaamo oo u duceeyo haliyeyga abtahanka caaqilka waxa weeyaan ninka la yiraahdo qof walba uu garay waa Faysal Cali Waraabe waa caaqil waa mujaahid waa haliyey wuxuu raba ku hadla calooshiisa waxa ku jira ku hadla xaqiiqada afkiisa ka sheegta aan in yar calooshiisa waxba ku reebin waxa la cimrigaaga sidii Cabdi Waraabe Allah dheereeyo shacabka reer Soomaaliland mid baan oranayaa cadaab wax lagu ordo maaha nabadiina ilaashada Allah idin ilaaliyo idinku shacabow dadka la taagmatiidana is ilaaliya ilaahayna waxaan ka bariyaa barwaaqiyo bashbash waxaan ku soo daynaya caawa waa 26 sano 20 iyo waxaan leeyahay 8 sano maalinta Soomaaliland gooni isu taagtay sheeko yar weey sheekadan waxaan la hadlay anigoo magaalada Loosaaka jooga oo haddaba idinku qosti gabadh yar markaas gabadh yar waan ahaan jiray ayaa waxaan la hadlay Janno Fardowsaan la hageeyay in la oran jiray Xaaji Jaamac Diir Qadhaan ra'iisul baarlamaankii ugu horeeyay Soomaaliya waan u ducaynayaa Allah u naxariisto isaga intii la midaba waxaan ku idhi ma maqashay Soomaaliland way goosatay tix baan u tiriyay marka aamina waadiga tuurtuur jira soo daabuu tiiban caawa sheegaya khaladna maaha hana iga xanaaqin والله عيدو ما jeedo xamar caruurtaydo dhan baa ku dhalatay dhiigaygii baa jooga dadkaygii baa jooga tolkay baa jooga wax kasta ay tahay marka laakiin sheekadayda yara galaysa waxay tixdani samuud geela loo bixiya idinku ciyaal baa tii inta badan geela ma taqaanaan samuuday hashayadii 60kii la keenay markay socotay gaaladu anaguna sagootinay ilaa tuuna siiyay lagu qaaday salada xamar la iska siiyay 30 sano gumaysiya salagiya cadaabkii saqiiradii la gowracay sakadihii la dumin jiray seerihii la gubi jiray saqda dhexe habeenkii raggii xeebta lagu sibay ku jireen saqiiradu samuuday siday doontaba u dhimatee markuu sahanku noo kacay saraakiishii dhiidhiday Soomaali hawdiyo markii sare la aadee ururkeeni samawade halkaas iska loo dhigay sangihii calaysna sarkaalkii lahaan jiray sanad wuxuu lahaa iyo markuu qaatay seeftii suuradaha quraanka iyo duca lagu sagooti sabsabkii cadaawaha samahariire dhexdeedii markay siiyeen naftoodii sahan kuma daale ee samada istaageen samuuday saqda dhexe habeenkii suldaankuba siduu yiri suugaanta lagu daray ma la saaray calankii oo ma sacbiyeen dadweynuhu samuuday siligii ku saaraa samawada ma soo furay samawada waa ururkii Soomaali haw tagay samawada ma soo furay seerahaad lahayd iyo ma timid seerahaad lahayd iyo ma timid seerahaagii samuuday siday doontaba ha noqotee inkastoo isaantaadu muruxdo sare u rooreen naasuhu ilaa tuuna siiyay ku saluugi mayne ee ku sinaw halkaaga anyway insha Allah aad baa u mahadsantiin dhagiinada amaaysan waxa weeyaan kollay intii aan garanay waa loo fasiri doonaa samawade iyo sarkaalka sangihii cadaysnaa sarkaalkii lahaan jiray markuu qaato seeftii la leeyahay suuradaha quraanka iyo duca lagu sagootay waa saraakiisha maanta Soomaali haysata Somaliland waan idin ducaynayaa waana mahadsantiin dhagiinada amaaysan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh